gabdhaha Soomaaliyeed meel xun bay isdhigeen waxa arkaysaa naag mid iskala soo baxay ilkala oo aan shilin haysan naagtu waa xayawaanku isma guursadaan ilaa ay condition isku xiraan wallahi been idin sheeg maayo gorayadu waxay leedahay kaal marxaati inoo raadi inaad caruur ilaahaynaso inaad libaaxu sidoo kale family dhismaayo ilaa ay naagta ay soo kalaadaan ay ka dhaadhiciyeen inuu habeenii maalin waardiye ka ahaan Soomaalidu waxa weeyaan laba habeen bay mid arkaysa ilkala waa daba socotaa ninkii baa naag la soo baxay nin shaqo hayn guri haynin waxba haynin xaguu geenaya markii iyo caruurteen isha shirad meel la dib hadaba iyagoo laba dhalay oo kala fool xun bay gidaarada taageen marka maxaad ka leedahay dadka ambulance children ka dhalay jawaab ka hadlaya macquul ma aha nin hal qoltiga sagaal ciyaal inuu dhalo mid kale waxaad arkaysaa midaan waxba hayno kule afar baa qaba xaraan weeyaan waxyaabaha suuqa inay tarantaaduna badato wax soo saarkaagina yaraado waa hoogi halaag bad ku dambeeyay waa waxa hadda ina haysta waa waxa suusaadka in ugu jirno waxaad arkaysaa hal qoltiga sagaal ciyaal dhalay lama arkin adduunyada dadka iska soo toosaan maqaxiskooda fariisanaya qadadii ka tagaya soo laabanaya fariisanaya habeen barkii ka tagaya adduunka meel ka hadal orab soo saay wali ma aragteen afar midoo quraan joog gidaar iska fadhiya oo bilaa macna xagga noo socon ma arag sabab marka Soomaalidu maxaa fariisiyay gidaar wali lama arag hadal un haya hadal Mareykanka gawar ma arkaysto waxa soo waligeed shan ilo Mareykanka bilaa macna meel fadhida ma arag shan jeelaysa ma arkin weligay ma arkin yaab baa ku maqanayba umadan iska soo wada fadhida laba boqol oo nin oo meel iska soo fadhida weligeed yaa kama sheekaysanayaan dadkii ka sheekeynayaan hablaayo ma la furay kule ma ana qabi jiray maxaa ka kala jira waxaan istubnimo aba isweydiinayaan hadana iyo caruur ma ku caruur ma ku dhashay xalay maxaa dhacay iyo waxaan la garanayn oo baa waqtigoodii bay lumiyeen timekoodii bay lumiyeen okay halku muxuu yahay halku waxa weeyaan inaynu gacmaha qabsano 20 jeerna waa idin sheegay waxna baranno waxna beerano sidaasaynu ku dharki karaynaa that's the only way dhulna waynu haysanaa awoodna waynu haysanaa soonku wax ciyaara ma aha صح soonku waa wax faral oo ilaahay inuu ku faral yeelay aadiya suuratul baqara waa suurada labaad ee sharciga dhan quraanka ugu horeysay buu ku jiraa soonku صح soonku ilaahay wuxuu ku leeyahay sidii madihii hore ayaan waajib idin ka dhigay marka haddii aad bisha soo rabadaan aragto oo aad qofka qaangaaro caafimaad qaba tahay waa inaad soomtaa no matter what marka waan soomanahay gidaarna laadhuu baan ku ciyaaray wax macquul ma aha marka don't waste your time haddaad sooman tahay yacni waa inaad wax ajar leh aad ka shaqaysaa laakiin gidaar laadhuudu sideedaba xaaraan u tahay laadhuudu sideedaba xaaraan u tahay adduunka meel afar nin oo waaweyn intay fadhiistaan laadhuu ciyaaraan ma jirto qaar soomana salaadin baa jira kuwaana ka war والله تاسنا ودنبجيذ سيلة هذا تكنين لبا فرل بامني كتجي منا قاتي معقول ما نبى وحلا جهيا تولدي وانا قرنين وحلي ما بس على الدين حتى السوبي كاسو إلهي هاف كباسة سوي مامين نوعا حد كذا تاسو كل والله وكيري وكله سلادي محي قدنا علمير يسوني محي قدنا عن السوحديد ما عرفت واسكش كذا دان انت تاريخها كسيكون كغا بخنا waxaan nahay dad ka suga caawimo dal saddex beelood wax beerta waa history waa taariikh waxay liyaab kale waa baarintaas ba Europe iyo Mareykan 3 months kaliya wax beertaan 3 months kaas waxay beeraan wax adduunyadooda dhamay cuni karto innagana waxa weeyaan dalkeena 12 bilood waxba ka baxa 12 qorrax joogta baynu haysanaa biyana waan haysanaa marka ma garan karo waxaan la fadhino oo beeran laan ma la isdii karayaa aqoontiba yaani dadkii of course dadku waan sirxan yihiin aqoontiina way ka tagtay cara ilaahayna way ku dhacday oo dadka hadii waxyaabo badan isku misaab karayaan isku dardaraan wax badan baa ka taga marka waa dad hurdo oo soo jeeda hadana ma aragto qof soconaya oo hurdo wali ma aragteen weeyaan dadkanu